عليكم داوديال meel walba joogtaan oo mar kale barnaamijkeeni Bidar Caawiye TV waanigoo limaan Bidar Caawiye waxaan ku leeyahay jimco wanaagsan barnaamijka jimcaha maanta waxaan ku soo qaadan doonaa walaal kamid ah barbaarta gaashaaman ee ku sugan wadanka Finland oo markii ugu horeysay ee reer Finland boorka iska jafeen walaal kamid ah barbaarta gaashaaman ee ku sugan wadanka Finland oo nala soo wadaagay guul cajiib ah oo ku gaaray muddo 70 casho ah waa guul cajiib ah oo ka gaaray New Year Lotion muddo 70 casho ah walaalkan before sana ayuu ahaa talow after maxaa is leedahay wuxuu isticmaalana saliidda New Year Lotion hal caag kii labaad ayaa gabagaba ka la soco barnaamijkoo dhameystiran assalaamu calaykum daawadayaal meel walba joogtaan oo mar kale barnaamijkeeni Bidar Caawiye TV waanigoo limaan Bidar Caawiye daadheeya barnaamijka Bidar Caawiye TV maalin wanaagsan ayaan leeyahay oo maalin jimco ah 13 bishii 11 2020 waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka laba qodob qodobka koowaad oo ah walaal ila soo wadaagay saliid laga iibiyay oo ku arkay waxyaalo uu ku arki jiray saliidda hore uu isticmaali jiray walaal laga iibiyay saliid oo ku sugan Soomaaliya Muqdisho oo saliiddii hore laga iibin jiray oo ku arag wuxuu ku arki jiray iyo walaal guul ka gaaray walaal ku xiran janaalka Bidar Caawiye TV ee ku sugan wadanka Finland haddaan been sheegeen ama aan qaldaneen asaga soo sixi doono guul cajiib ah ayuu ka gaaray saliidda New Year Lotion wuxuuna isticmaalay hal caag iyo kii labaad ayaa gabagaba ka ah hadday tahay markii kugu horeysa soo booqato janaalka Bidar Caawiye TV waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa in ay igala baqiilin subscribe-ka hadday tahay markii kugu horeysa soo booqato janaalka Bidar Caawiye TV subscribe-ka iyo like-ga ha iga baqiilin insha Allah barnaamijka aan gudo galo waxaan rabaa inaan ku soo qaato walaalka ku nool wadanka Finland wuxuu isticmaalay hal caag saliida kii labaad ayaa gabagaba ka ah wuxuuna isticmaalayaa muddo 70 casho ah bishii 9aad ayuu bilaabay 9aad 10aad 11aad maanta waa 13 70 casho ayay intuu yiri 3 September ayaan bilaabay walaalkaas aan ku sheegayo before sana ayuu cajiib wax kale uu isticmaalay burushka shalada darmarolka saliidda New Year Lotion-ka oo isticmaalaha taa waa hal xabo tii labaad ayaa gabagaba ka ah hal xabo iyo half ayaan dhihi karnaa tii labaad ayaa gabagaba ka ah waa 70 casho guul uu ku gaaray cajiib ah maasha Allah ayaa leenahay guushaada waa guusheena barnaamijkana magaciisa wuxuu yahay caawi aan ku caawiyo waanigoo limaan Bidar Caawiye waxaa leeyahay walaalkaas guul wacan ayaan leeyahay qofka markuu guusha gaaro waa in aan u hambaliyeysaa xaasidnimadu ma fiicno walaalkaas waa in aan u wada hambaliyeyna aan dhahno guul wacan walaal macaane hore u sii soco insha Allah guul hordhac oo cajiib ayaan la soo wadaagtay guul cajiib ah mar walba waxaan ku soo qaadanaa barnaamijka guulaha walaalaha ay gaaraan meel walba ay joogaan walaalaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan adduunka dacaladiisa daafihiisa guusha aga gaartay New Year Lotion waxba anaga la baqiilin waana la soo wadaagi kartaa guushaada insha Allah hadal badan haanu buuxsho ayaa waxba warku ugu daalin walaalkaas before waa soo aragtay soo ahaa wuxuuna isticmaalay waa hal caag saliida kii labaad ayaa gabagaba ka ah maasha Allah ayaa leenahay guul wacan ayaan ku rajeynayaa reer Finland igu salaam ku dayasho ayaa mudan tahay before haddaa soo aragtay siduu ahaa walaalkaas after san ayuu yahay cajiib haddaa soo aragtay before suu ahaa after san ayuu yahay waxaan leeyahay walaalkan madaxiisa dadaal ayuu geliyay wax walbana waa dadaal inaad samayso adiga ay daawanayo dadaalka ay ku xiran tahay insha Allah New Year Lotion inay wax tar leedahay taas la isku maayo laakiin waxa la isleeyahay waxay tahay dadaalka la isleeyahay dadaalka qofka bini aadamka qofku ka caajis badan yahay hadaa caajis loo tahay saliidda New Year Lotion waqti ayay kugu qaadanaysaa hadaa caajis loo tahay laakiin dadaalkaaga hadduu badan yahay waxaan aaminsanahay in waqti yar dhaqdhaq ku sii doonto waqti yar oo kooban inaad dhaqdhaq ku sii doonto oo ay ka dhamaan doontaan aaminsanahay insha Allah waqti yar waxa waaye waxaan rabaa inaan ku soo qaato kala barnaamijka walaalkaas guul wacay leeyahay haddaan qodobka halka ku dhaafo walaalka halka uga baxo waxaan rabaa inaan ku soo qaato walaalka iibsaday saliid uuna isticmaali jiray New Year Lotion-ka hal caag ayaa ka dhamaaday caagii labaad ayuu iibsaday hal caag ayaa ka dhamaaday caagii labaad ayuu ka iibsaday wuxuu ila soo wadaagay caagii labaad inuu biyo yahay biyo caagii labaad inuu biyo yahay waxaan leeyahay
walaalaha dukaamada haysto oo saliidda new hair lotion dadka ka iibiyo aakhiradiina u baqaan leeyahay insha allah. waxaan rabaa inaan nila wadaago kale walaalaha ku sugan Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxa ay mar walba i weydiisaan saliidda lambar 2 ama Muqdisho nawaaxigeeda saliidda lambar 2 intay ka heleynaa see lagu garan karaa. waxaan ku hayaa saliidda lambar 2 meesha ka heli lahayd insha allah. waxaa igala soo hadli doontaa WhatsApp-ka ama fariin igu reeb WhatsApp-ka, telefoon ayaan ku sii doonaa insha allah ka helaysid, ama waxaa ka dooran kartaa Al-Yaqiin Muqdisho waxay ku taallaa isgoyska Holwadaag. Al-Yaqiin Muqdisho isgoyska Holwadaag ayay ku taallaa saliidda lambar 2 ah. walaalaha soo weydiiyey insha allah waxaan leeyahay halka u doonta. waxaan rabaa oo kale inaan kusoo qaato barnaamijka walaal kale oo ku xiran barbaarta gaashaaman oo ku sugan, waxaan u malayaa inuu Muqdisho ku sugan yahay, ayaa wuxuu ila soo wadaagay asagana qiso cajiib ayuu ila soo wadaagay. qiso cajiib ah oo ku arkay new hair lotion ayuu ila soo wadaagay. walaalkaas wuxuu soo weydiiyey su'aal ayuu aniga soo weydiiyey Liyom Bidar Caawi ahaan. su'aasha inta uga jawaabina asaa iskaga jawaabay. wuxuu yiri waxaan soo gatay 6 xabo new hair lotion aan soo gatay, waxaan rabaa inaan isticmaalo 6 xabo oo new hair lotion ka ahaa inaan isticmaalo ayaan rabaa, laakiin waxaan rabaa sidii saaxiibkay uu isticmaalo. hadalka hadda u fiirso, saaxiibkay soo uu isticmaalay ayaan rabaa inaan u isticmaalo 6 xabo saliida. okay, waxaan ku iri aniga hadda maxay soo weydiistay inaan ku caawiyo oo tala aan ka siimiyo ii soo wacday mase wax kale. wuxuu igu yiri tala inaan iga siisana waan rabaa, laakiin saaxiibkay ayaan baashan tusay. saaxiibkay bidaar ayuu lahaa, waan ku buraarugay. saaxiibkay maadaama uu bidaar lahaa wuxuu isticmaalay 6 xabo new hair lotion, wuxuuna isticmaalayay halkii caag 10 casho. halkii caag 10 casho waa 2 bilood 6 xabo. marka waxaan ku yirinayo haddii aa wado xeerka saliidda ama waxa ku qoran kartoonka new hair lotion waxa ku qoran 2 times ama 3 times ku qoran, haddaa leedahay waajibina aday ku taala. laakiin tala ahaantayda haddii aa micnaha waqti aa u hayso ama waqti aa u helaysid waxaa isticmaashaa 3 times oo ku qoran tahay. qofka at least inuu 3 times isticmaalo ama 2 times 3 times ku qoran haddaa isticmaali kartid. marka waxaan ku yiri haddaan niyad u haysa aragti inaad isticmaashado haddii aani tala iga rabto waa ku siinayaa, laakiin tana isku leenahay wixii go'aanka ala iska leh. haddii saaxiibka wuxuu sameeyay aad sameynaysid, saaxiibka hadduu god ku dhaco inaad ku dhacdo ma ahan. saaxiibka hadduu god qoorta la galo oo qoorta ka go'do inaad godkii qoorta gashid ka daba gashid oo qoorta ka go'do ma ahan. walaalkaas waxaan ku iri walaal macaane khayr Allah ku siiyo, waxaa samaysaa sida ugu fiican samayn karto waxay tahay 3 times isticmaal, maadaama niyad aa u haysid isticmaalka new hair lotion adigoo iswaalin oo na ka waalin baasha 2 times 3 times aan ku qoran kartoonka. haddii aad leedahay caagina 10 beri ku dhameynaa waxaa laga yaabaa inaad 5 mar maalinta marsanaysid, 5 mar inaad marsanaysid. marka waxaan iri walaalkaas insha allah barnaamijka hadalkan uu ii raaciyay afwan barnaamijka ku soo qaadan uu yiri waxa ku soo qaadanaya waxay digniin u noqonaysaa barbaarta gaashaan meel walba ay joogto. waxaan leeyahay jimcuhu ni wacnaado anigoo Liyom Bidar Caawi. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.